waxaan xoogga saaraynaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada Soomaaliyeed oo rasmiga ah yaan xoojinayaa mushahar joogtana u qorina hadduu Ilaahay yiraahdo farmaajo shalay iyo farmaajaha maanta ayaga istooganayba haddaad hadda khudbadiisa dhageysto 2015 iyo 16 wuxuu ku khudbeynayay iyo 14 wuxuu xasasho ku idin haddaad dhageysato asagii ayaa maanta baradheereeyaba marka aniga waxaan qoray farmaajihii shalay joogay wixii ka horeeyay 2017 iyo farmaajaha hadda jooga 2017 wixii ka dambeeyay hadday iska soo horbaxaan midaa la tooganaa xabada isku dhufanayaan labadoodaba waa xabadaynayaan xamar dhaxdeeda dariiqa elgaab ayaa loo kala faataxinaa iyo meesha SOS u dhaweed isku rantii hore meelaha uu hadda maraa asaga hal wado maraa magaalada xamar wadada dheer oo dekadu maraa mugta markuu airport ka baxay tii ku soo noqdaa hadduu marka labadooda isxabadayaan waxaa dhimanaya oo la dilayaa most likely sida u badan tahay kii hore dhimanaya kaas damiiru sheeganay wadada yaa la xirin jidka dadka laga xirin anigu dabadan baabuurta ka galaya anigu baabuurku ma raaxaysanayo la jid idin xirayo marka kaasa la dhimanayo shacbiga dhinto la qayb galay ilaa kan hadda muhalliga noqdo ma dhimanayo kan hadda asaa wadooyinku xiran yihiin meel walba xiran yihiin meel la mari kara ma la mugta waxaan bedelaynaa oo kale haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu Ilaahay yiraahdo in dawladdu awoodeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xirayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb kamid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneed yaan gadaal ka geli jid la xirayo ma jiraayo marka beentiisii ayaa soo baxday legacy-gu ka tagayna waa farxumo la soco wuxuu ka tagayaa farmaajo xukunka asoo la nacalada ayuu ka tagayaa waxaana taas idin cadeyn doona habeenka hadduuba doorasho dhiga hadda inuu doorasho dhigaya dadka badankiis walwal iyo walaac uga jiraya sida xasan sheekh inuu doorasho dhigaya kursiga nabad iyo dimuqraadiyad inuu uga tagayo macal gaaladii ayaa ku sheegaysa ka walwalsan waxay ku leeyihiin no kuwa Soomaali dirsan marka hadda soo arkay aan ku soo arkay Norway soo aslay way yabayhiin no ay ku leeyihiin samarka marka hadduu marka saaba uu doorasho dhigo wuxuu ku baxayaa iyadoo la nacladayo magaalada dhan aan isku soo bixi doonta la soo xamar qof kuma hari doona habeenka leeyahay farmaajo xukunka ka dagay nin cusub ay yimid marka anigu waxaan ka maqaaba xaguu aadi doonaa marka asaga magaalada soo uga bixi doonaa waxay noqonaysaa dawladda dambe in la yiraahdo guddi hal saaro wixii la dilay iyo wixii la haleeyay ma ka bixi kartid joog adiga iyo wasaarahada hooyooyinka dariiqa ku dhalay ee uur ayagoo aan dhalay ee ilmaha laga soo jiiday ama dhiig baxay ama dhinta ama cunugooda ka dhintay la baaro oo dacwadooda soo fariistaan aan qaadno ilaa dawladnimada dadka in lagu dulmeeyo ma ah dawladnimada waa in dan yarta loogu daneeyo waa hooyadaas waa in la dhageystaa dhiigeeda ka sii socda meesha cunugi ma dhintay mise waa nool yahay wixii khasaaro dhacay waa lama dhabaa asagaana mas'uuliyadda qaaday in loo xukumay noqonay waxaa nasiib darro ah Soomaaliya waxay noqotay meesha dunida ugu xun ee hooyada iyo dhallaanka qiyaastii 6% ilaa 10 hooyada dhalatay hooyada uurka leh 6% ilaa 10 waxay halis u tahay inay dhimato ama ay umul raacdo 10% ilmaha dhalanaya waxaa laga yaabaa inay dhintaan infant mortality inay u dhintaan hooyada Soomaaliyeed waa tan markii dib dhaco qaxda waa tan ooyeysa markii ilmihii ay ku babacaan badda waxaan idin ka codsanayaa codkiina si aan u badbaadino dhallaanka damiga saalaani waxaan ugu baaqaa marka hadda wadooyinka fur halka sano ku dhiman si fur jidadka fur wadooyinka xiris jooji iyo dadka baabacaya dhaqaalahooda ma dumayo waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteelo hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka mas'uula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino dawladnimada la sheeganayo waxay isku soo ururta propaganda been hawaas iyo inuu social media lacag ku dhiibo suuqa loo galo leeyahay waxa la sameeyay wax cad oo lagu sheegi karna male hatta qofka caadiga ah annaga iska badaa qofka dariiqa maraya caadiga ordinary-ga wax loo sheegi karo wixii shalay uu sheeganay markuu ra'iisul wasaaraha maanta uma sheegi karno karo waxaan ka bedelay xasan sheekh wixiisi iyo wixii ka horeeyay waxaan ku soo kordhiyay ma jirto maxay dadku taalooyin aan meel ku soo celiyay iyo dabaqan dayactiray dawladnimo ma aha maxaa macna ay sameynay ayaan laadaan ku weydiinaa hadda dabaq aad dayactirtid oo aad rinji barisid iyo istaadum usoo rinji mariyay maxay sameynay haddaadan xalin grievanceska shalay dabaqan loo dumiyay wax bamka loogu dhuftay oo loo bilaqaystay ma xalisay no sida Rwanda iyo Burundi iyo Congo iyo Liberia Sierra Leone iyo wadamada burburo dhan waxa la xaliyay wixii keenay shalay dadku inay ku qamaamaan waxa loo goynaa asaa wax walba sheeganayo dictatorka sheeganay oo la ana sameeyay
talada anaa sameeyey tan anaa sameeyey dictator calaamadaha lagu yaqaan waa anaa sameeyey anaa yeelo leeyahay ma dhahayo war shacbigiyo dowladdiina waxaan idin qabatay war waxaan shuuraa la idinkugu qabto ma dhahayo asagaa raba inuu ku faano wax walba anaa idin sameeyey that's why meelaha dictatorada loo dumiyey Saddam Hussein iyo kulli loo duminaya meel dictator ka jiray waa la duminaya waxay yaallo bangiga loo bilaqaysanayo ilaa waxay u arkaan inuu asaga leeyahay moogta asagana waa nacay waa karaheen oo na dictator oo dadka caburnayo noqday dib u heshiisiin aan samayno dad waana waxaan ku kala duwannahay male waxaa laga yaabaa siyaasiyiin inay kala fogeynayaan laakiin dadka Soomaaliyeed col ma aha waxaan xoogga saaraynaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada Soomaaliyeed oo rasmiga ah ayaan xoojinayaa mushahar joogtana u qorina hadduu Ilaahay yiraahdo hanolaad waxaan ugu talagalnay wacyigelinta iyo wargelinta bulshada Soomaaliyeed waxaadna maalin walba hadduu Alle idma ka daalan kartaa barta internetka aan ku leenahay ee hanolaato.com ama YouTube-ka oo aad subscriber ka noqon karto si aad u rukumato muuqaalada cusub ee soo tubino maalin walba hadduu Alle idmo